kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada daawad doontaana waxa kamida wararkii ugu dambeeyay dhaqanka beelaha Gadabiirsi ee dega gobolka Awdal oo si adag uga hor yimid maamulka Soomaaliland iyagoona joojiyay wada shaqayntii ay la lahaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Cirro haddaba maxay tahay khilaafkan culus iyo furinta dagaal ee haatan Soomaaliland uga furan gobolka Awdal dawladda federaalka Soomaaliya oo dalka dibadiisa u qaaday dadkii ku dhaawacmay xasuuqii ciidanka Soomaaliland ay horaantii bishii December ka geysteen magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal kuwaas oo si bareera u toogtay dad shacab oo dibad baxayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay iyo kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha mucaaradka oo si weyn loo hadalhayo saacadaha soo aadan iyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicaziz Laftagareen oo mar kale amray saraakiisha ciidanka maamulkaasi inay weeraraan siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo iyo xaalad cabsi oo mar kale ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo horay dagaalo culus ay uga dhaceen qodobadaas oo faahfaahsanaya saaxiibayaal ku daawad doontaan barnaamijkan inta hawada ku jiro balse daawadii haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dhig kanalkan subscribe dhig kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka halkan aan ku soo gudbino aynu ku bilownay dhaqanka beelaha Gadabiirsi ayaa mar kale si kulul uga hadlay dhacdooyin iyo hadallo ka soo yeeray maamulka Soomaaliland iyagoona sheegay in hadallada ka soo yeeraya mas'uuliyiinta ka tirsan Soomaaliland ay ku aadan xaaladda gobolka iyo colaadaha ka taagan galbeedka deegaanada ka tirsan Soomaaliland ay tahay mid aad uga duwan waxa dhabta ay ka jira deegaanadaasi iyagoona xiriirka u jiray wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale midda amniga war qoraal oo ka soo baxay dhaqanka guud ee beelaha Gadabiirsi oo maanta shir ku yeeshay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxay markaasi uga hadleen xaaladaha culus ee haatan wajahada gobolkooda iyo sidoo kale eedayn kulo ay u jeediyeen maamulka Soomaaliland ee hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro waxay si adag u joojiyeen wada shaqaynta ay la lahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland taasi oo u xil saaran amniga guud ee Soomaaliland iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada gudaha taas oo dhinaca kalena halis xoogan ku maamulka Soomaaliland ayna tahay fariin cad oo ku wajahan xukuumadda Cirro iyo in gobolka Awdal uu haatan qarka u saaran yahay inuu ka baxo gacanta Soomaaliland odayaashan dhaqan ayaa markaasi daliishaday sababaha ugu weyn ay xilligan ku soo aaday warqadoodana ku tilmaamay hadal ay ku tilmaameen mid ka been sheegaya colaadda ka taagan galbeedka Soomaaliland oo u dhawaan saxaafadda la wadaagay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdalla Sandheer oo ka soo laabtay deegaano ka tirsan gobolka Saraar halkaas oo ay ka dhaceen dagaalada beeleedyo fara badan oo u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Gadabiirsi madax dhaqameedka gobolka Awdal ayaa warqad ay soo saareen waxay ku sheegeen in wasiirku si cad uga been sheegayo xaaladda dhabta ay ka jirto gobolka Awdal iyo sidoo kale salal iyo colaadaha ka taagan markaasi deegaanadaas waxayna sheegeen in been abuur ay tahay hadalka wasiirku jeediyay ee ah in aan lagu soo duulin gobolkaas isla markaana aanay jirin ciidan ka soo gudbay dhinaca xadka Itoobiya iyo sidoo kale dalka Djibouti kuwaas oo ay sheegeen in weerar ay ku hayeen gobolkooda waxay sidoo kale ka been sheegeen in waxay sidoo kale beeniyeen hadalka wasiirka ah in la soo dhameeyay colaadii ka jirtay galbeedka Soomaaliland isla markaana ciidanka Soomaaliland ay si buuxda gacanta ugu hayaan xuduudaha waxayna markaasi sheegeen in dagaaladu wili ay ka dhacayaan ilaa haatan ay socdaan taasi oo been weyn oo ay sheegeen in ay ku kacayso xukuumadda hogaamiye madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxay sidoo kale sheegeen wasiirku uu si cad u aflagaadeeyay madax dhaqameedka beelaha Gadabiirsi oo ku sheegay dagaal ooyaal nabadda diidan arrintaas oo ay sheegeen in ay tahay weerar qaawan oo ka yimid dhinaca wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland si kastaba haatee xaaladda gobolka Awdal ayaa ka sii daraysa iyadoona gobolada galbeedka ay ka taagan tahay xiisad culus oo ka dhalatay in xeer ciise lagu qabtay gudaha Siilac taasi oo sababtay in dhinacyadu ay abaabulaan ciidamo fara badan oo goboladaasi lagu abaabulay iyadoona qaarkood ay sheegayaan inay ka soo gudbeen dhinaca xadka Itoobiya iyo Djibouti taasi oo sababtay isku dhacyo hubeysan oo ilaa haatan ka taagan gobolkaasi Soomaaliland aysan ku guuleysan in ay wax ka qabato colaadda ka taagan galbeedka Soomaaliland dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ay haatan cabsi xoogan ka wajahayso gobolkan iyadoona cabsi xoogan ka qabto xukuumadda Cirro inuu ka baxo gobolkan gacantiisa marka loo eego talaabooyinka ay qaadayso xukuumadda Soomaaliland ee ka sii daraya markaasi siina gadoodinaya dadka degan markaasi gobolka Awdal hore ciidanka Soomaaliland ay dhibaatooyin iyo hakrasho uga geysteen gobolkaasi Soomaaliland ayaa gobolkaasi dhawaan ku xirtay dhalinyaro fara badan iyadoona caburin joogto ah lagu hayo dadka deegaanadaas waxaana jira dhalinyaro fara badan oo xabsiyada laga buuxiyay qaarkoodna la sii daayay hal kuwa kalena ilaa haatan ay ku jireen xabsiyada magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal kuwaas oo loo haysto arrimo la xiriira xorriyatul qowl iyo warar ay markaasi iyagu ku hadleen
dadka ka faallooda arrimahan waxay sheegayaan in gobolka awdal ay ka soo baxayso ifaallo mida tiilaas canood haddii aysan xukuumadda somalilan qaadin tallaabooyin ay ku dejinayso xaaladda ayna markaasi siinayso dadka deegaanadaasi xuquuq la mida xuquuqaha ay haystaan dadka ku nool hargeysa berbere iyo sidoo kale burco dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo si weyn ay u bogaadiyeen dadka ku nool gobolka awdal iyadoona markaasi dalka dibadiisa u qaaday dhaawacyadii ku soo dhaawacmay dhibaatooyinka ciidanka Soomaaliland ay ka geysteen gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka awdal horaantii bishii December ee sanadkii idin weeyay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ka sagootisay dad fara badan oo qaba dhaawacyo culus oo dalka gudihiisa wax looga qaban waayay kuwaas oo ka mid ah dhaawacyadii ay soo dhaawaceen ciidanka Soomaaliland waxaana markaasi tallaabadani qaaday oo dowladda ay u wakiilatay wasiir duulaha wasaaradda guriyeynta dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Ayuub Ismaaciil oo ka soo jeeda gobolka awdal isagoona garoonka diyaaradaha aadan cadde ka sagootiyay dhaawacyo markaasi ka dhashay dhibaatooyinka ciidanka Soomaaliland ay sida bareerka ugu laayeen dad shacabo oo dibadbaxyo nabadeed ka waday gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka awdal 4tii bishii December ee sanadkii inuu wadaadhay dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in loo qaadayo dalka Turkiga iyadoona markaasi lagula tacaalayo halkaasi xaaladooda caafimaad talaabadan ayaa ku timid kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay dayacday dadkii ay ku leysay gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka awdal iyadoona aanay jirin wax talaabo ah xukuumadda Ciro ay markaasi ku xawal marinayso dadkii ay heladooda ku leysay markaasi gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka awdal daawadayaal qodobo kale xasaasi ah ayaa inoo soo socda balse daawade haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dheh kanaalkana subscribe dheh kana mid noqo saaxiibada halkan ku xidhan si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka halkan aan kusoo gudbino haddii aad hore noola joogtayna ku mahadsanid daawada la jaanqaadka wararka iyo barnaamijyada halkan aan kusoo gudbino madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo warinayaa inuu maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib kulamo maalmihii la soo dhaafay uu ka qayb galay shirka midowga Afrika oo ka dhacay gudaha magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn soo laabashadiisa looga dareemay gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho isagoo haatan wada dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ku aadan xaaladaha siyaasadeed ee cakiran sida uu qorshu yahay filla Soomaaliya ayaa haatan xoog saaraysa furitaanka shirka ay la leedahay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ay hoggaan ku hayaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo haatan ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ilaa wareedii xilkaas ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu si degdeg ah u guda gali doono qabashada gogasha uu dhigay iyadoo markaasi looga wada hadlayo xaaladaha ismariwaaga ee ku aadan hannaanka siyaasadeed iyo midka doorasho ee uu dalku wajahayo gogashan ayaa wajahaysa caqabado waaweyn oo aan wali lagu heshiin iyadoona markaasi goobta hadda lagu heshiin lahayd waxaana Axmedoobe iyo Siciidani ay ka cagajidayaan inay galaan xarunta Villa Soomaaliya oo shirkaasi ka dhaco halka dhinaca kalena agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo xalay booqasho ugu tagay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland uu isku dayay inuu ku qanciyo labada madaxweyne in ay markaasi ka qayb galaan gogasha uu dhigay ee ku aadan inay galaan xarunta Villa Soomaaliya isagoona Mahad Salaad la sheegay inuu damanad qaad amni u fidiyay Puntland iyo Jubbaland gaar ahaan Axmedoobe iyo Siciidani oo ku sugan xerada Xalane kuwaas oo si weyn markaasi u diidan inay galaan xarunta Villa Soomaaliya Mahad Salaad ayaa sidoo kale xalay la sheegay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isagoona kala hadlay ismariwaaga haatan iyo sidoo kale xal u raadinta caqabadaha jira ee ka dhashay hannaanka doorashooyinka iyo sidoo kale wax ka bedelka dastuurka meel gaarka ah Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalado siyaasadeed oo cakiran iyadoona dhinacyo kala duwan ay ku kala hardamayaan kursiga ugu sarreeya dalka oo doorashadiisu ay ka dhiman tahay wax ka yar 9 ciso arrintaas oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la soo warinayay inuu ku dadejinayso inuu qaado tallaabooyin ku aadan sida uu dalka doorasho uga qaban lahaa haddii uu diidana uu dalka u gali karo qalalaase mucaaradka ayaa sheeko xoogan ka qaba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna sheegeen inuu ka meermeerayo gogashii uu cilaamiyay sidoo kalena uu doonayo inuu sameeyo muddo kororsi maadaama waqtiga uu hore uu yahay mid yar haatan uusan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u muuqan inuu dalka qabanayo doorasho qafiicada dhinaca kale Villa Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigtay hoof fara badan oo ay ku jiraan taangeeda dagaalka madaafiicda goobta iyo awood military oo culus arrintaas oo dhan kale mucaaradka ay cabsi xoogan ka muujeen iyagoona sheegay in madaxweyne uu dhisay awood military ayna markaasi doonayo inuu sii joogo kursiga si cid kasta u soo wartana uu muuqaniyo awood
ugu dambeyntiina hogaamiyaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa la soo warinaya inuu mar kale gudaha magaalada Baydhabo ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo culus oo uga soo horjeedo markaas siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee ciidamada hubka ku dhaxaysta gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed. madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa maanta shir gudoomiyay kulan looga hadlayay xaqiijinta amniga deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada Baydhabo isagoo la isku keenay saraakiisha amniga ee maamulka koonfur galbeed gaar ahaan saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dhawaan dagaalamay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayay xoguhu sheegayaan inuu amray saraakiisha uu la kulmay inay qaadaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo isla markaana tallaabo cad laga qaadayo cid kasta oo ku tilmaameen kooxaha nabadiidka ee carqaladeynaya xasiloonida iyo horumarka deegaanada koonfur galbeed. sidoo kale qoraal ka soo baxay madaxtooyada koonfur galbeed waxaa lagu sheegay in howlgallada ciidamada koonfur galbeed ee ku aadan ilaalinta amniga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ay yihiin kuwa waajib ah isla markaana madaxweynaha koonfur galbeed uu amray inay dagaal toos ah kala hortagaan cid kasta oo isku daydo inay carqaladeydo amniga markaasi magaalada Baydhabo. madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen hadalkiisan waxa uu ku su'aadaya iyadoo dhawaan gudaha magaalada Baydhabo uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay madaxweynaha koonfur galbeed ciidamo ka tirsan iyo sidoo kale ciidamo ay wateen xubnaha mucaarada ugu horeeyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Elay kuwaas oo dagaalkoodu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay una sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Laftagareen ayaa si weyn u amray ciidamadiisa inay ka hortagaan cid walba oo ciidamo la soo gashay gudaha Baydhabo una damac kaga jira kursigiisa oo ku dhow in ka badan 8 sano oo hogaaminayo maamul koonfur galbeed oo kaliya ka taliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. dhinaca kalena ay dhammaan deegaanada maamulkaasi gacanta ku hayaan kooxaha argagixiso. daawadayaal gudahaan intaas wax ku warkaad kala socoteen kanaalka wararka Xogaha TV fadlan daawad haddii aad halkan nala soo gaartay ku soo biir kanaalka muuqaalkan like dhig kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran nabadgelyo.